السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maadaama aynu ka midnahay caalamkan youtube-ka ee aadka u ballaaran taasoo inaga khusayeen wax walba oo lagu soo bandhigo bartana youtube-ka waxaanu muuqaalkanan maanta isku degi doonaa haddii waa alla idmo weeyaane inaynu kaga hadalno muuqaalada ugu dislike-da badnaa ama basuulka furare lagu boobay ee ku jira barta youtube-ka maaha muuqaaladaasi kuwa ay 1,000 amaba 10,000 oo dislike-ka saaray oo muuqaalo amaba fideoyo milyan dislike-ka wax ka sarreeya kor u dhaafay helay magacaygu cabdimajid waxaan kusoo gudbiyaa kanaalkan dhacdooyin xaqiiqa iyo mawaadiic faa'iido leh fadlan haddaad nagu cusub tahay kanaalka kusoo biro subscribe taabo lana wadaag asxaabtaada haddii uu ku cajabay muuqaalkani mahadsan aynu gudagalno muuqaalkeena maanta muuqaalkeena ama videoga ugu horeeya ka fideoyada ugu dislike-da badan ee ku jira barta youtube-ka waa Isbaanishka aad inta badan wada taqaanaan lagu magacaabo Despacito heestan oo barta youtube-ka la soo geliyay sanadku markuu ahaa 2017 taasoo ay daawashadeeda ama inta la daawaday ay kor u dhaaftay 7 bilyan oo jeer in ka badan yacni adoo dadka adduunka ku nool ay ka badan tahay daawashadeedu waxaana heestan marar aad u badan ku gashay kaalinta koobaad nambaradeedan aadka u tirada badan waxaana heestani haysataa ama like saaray 40 milyan oo qof waxaana kale ay dislike heshay ama عجبني هستني 4.8 مليون qof laakiin si hadii aynu u eegno heestan ta like ay haysato oran karna waa iska caadi sidaasna waxay heestan kaga mid noqotay muuqaalada ama fiidiyoyada ugu dislike-da badan ee ku jira barta youtube-ka fiidiyoga ama muuqaalkeena ku jira kaalinta labaad ee ugu dislike-da badan barta youtube-ka waa isla shirkadan youtube-ka aynu ka hadlayno kanaal ay ku leedahay bartaasi kaasoo magaciisu yahay amaba lagu magacaabo kanaalkaas ama channelkaas YouTube Rewind waxayna sanad walba dhamaadkiisa ku soo casuuntaa qaar ka mid ah youtuberada haysta amaba ay ku xidhan yihiin dad aad u tiro badan waxaana la wadaagtaa dadka iyadoo xaflad u dhigaysa muuqaal ay isku yeedhaan youtuberadaas muhiim waxay sanadku markuu ahaa 2018 gabagabadiisii ay sidii caadada ahayd shirkadda YouTube soo deysay muuqaalkeedii ay ku soo casuuntay kuwa ka mid ah youtuberada xilligaas haystay nambarada aadka u waaweyn laakiinse waxay dhibto ka timi in aysan ku soo casuumin amaba u yeedhin dad wax garad ah yacni waxay ahaayeen dadkaas ay ku soo casuuntay kuwa aysan ka helin dadkii daawaday waxaana fiidiyogaas la daawaday in ka badan 212 milyan oo jeer waxaana la garaysaa ama uu cajabay fiidiyogani 2 milyan dad kor u dhaafaya balse arrinka yaabka leh ayaa ahaa in 18 milyan oo qof ay dislike saareen qiyaastiina waa Soomaalida marka loo qaybiyo 3 meelood oo 2 meel qof ayaa dislike saartay arrin la yaab mudan muuqaalkeena ama fiidiyoga kaalinta saddexaad nagu jiraan waa ninka ugu subscribe-ta badan ama dadka ugu badan ay ku xidhan yihiin barta youtube-ka kanaalkiisa wax ku xidhan ninkan dad gaadhay 108 milyan oo qof amaba subscribe ninkaas oo magaciisu yahay amaba lagu magacaabo PewDiePie intaas kadib waxaa sanadka markuu ahaa 2016 soo geliyay ninkani kanaalkiisa fiidiyogaas ayaa waxa uu ahaa mid aad u la yaab badan fiidiyogan ayaa waxa uu ninkani ka dalbaday dadka ku xidhan ee dawladda u dhigma hadaanay kaba badnayn dawladaha qaar dadkan ku xidhan in ay markan ama fiidiyogan ay iska ilaawaan buttonka like-ta amaba aanay taaban buttonka yar ee like-ta oo ay buttonka like-ta bedelkiisa taabtaan dislike oo ay dislike gareeyeen fiidiyogan run ahaantiina waa la yaab muxuu uga jeedaa PewDiePie markan fiidiyogaas iska caddahay in odaygani ku caajisay like-tan badan oo helayo intaas kadib waxaa la daawaday fiidiyoga 23 milyan oo jeer amaba wuxuu helay 23 milyan oo daawasho ah waxaana la gareeyay 300 oo kun oo qof dad kor u dhaafaya waxaana dislike gareysay 5 milyan oo qof dad kor u dhaafaya odayga PewDiePie wuxuu islahaa talow lacag badan ay ka soo galaysa waxaana muuqaalkaas halka ku galay amaba kaga mid noqday kaalmaha ugu horeeya fiidiyoyada ugu dislike-da badan ee ku jira bartan youtube-ka kaalinta afraad waxay noogu jiraa fiidiyoyada ugu dislike-da badan waa heesta ama fiidiyo magaceedu yahay Johnny Yes Baba adigu waa hees loogu talagalay maawalada caruurta waxaana heestan laga soo daayay kanaalkan ama channelkan hortiina ka muuqday haysta 3 milyan subscribe waa channel ku saabsan kaliya maawalada caruurta intaas kadib markuu sanadku ahaa 2016 ayaa waxa uu soo dhigay kanaalkani heestan ugu magac dareen Johnny Yes Baba waxaana la daawaday heestan 4 bilyan oo jeer amaba 4 bilyan oo jeer oo daawasho ayaa heshay waxaana like saartay ama uu cajabay fiidiyogani 12 milyan oo qof laakiin si dhibka jira ayaa in ay dislike saareen ama baan cajabin heestani 8 milyan oo qof dad kor u dhaafaya bal ka waran daawade qofkii sameeyay ama dadkii isku hawlay heestan diyaarinteeda qalbi jabka iyo qaraxanka ku dhacay dadkaas markii ay arkeen dislike-tan aadka u faraha badan
kaalinta shanaad waxaa noogu jira ninkan lagu magacaabo Justin Bieber. ninkan ayaa mid ka mid ah fanaaniinta ku heesa afka Ingiriisiga kaasoo aad inta badan wada taqaanaan. waxaana sanadku markuu 2010 soo geliyay bartiisa uu ku leeyahay YouTube-ka heesu magaceedu yahay Baby, waxaana la daawaday heestaas 2 bilyan oo jeer in ka badan, waxaana like saartay 16 milyan oo qof, balse dislike ay heshay ayaa ah 12 milyan oo qof, taasoo la macnaha in aanay cajibin 12 milyan oo qof heestani. kaalinta lixaad ee ugu dambeysana muuqaalka ama fiidiyogeenu ugu jira ayaa ka ugu dislike badan barta YouTube-ka ka Soomaali ahaanteena. waa mid ka mid ah fiidiyoyada ay soo geliyeen ama ay soo saareen kooxda lagu magacaabo waayaha cusub ee aynu wada garanayno, waxaana sanadkii dhamaaday 2020 ay soo geliyeen heestaas oo ay daawasadeedu kor dhaaftay 1 milyan oo jeer ama 1 milyan, waxaana like saartay oo cajabisay heestani 32,000 oo qof, waxaana suulka fooraree dislike saaray 91,000 oo qof. sidaasna waxay kaga mid noqotay fiidiyowga amaba muuqaalada ugu dislike badan ka Soomaali ahaanteena. muuqaalkana maanta taas uu ka yahay intaynu ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan haddaad muuqaalka ka heshayna like saar ilna wadaag asxaabtaada haddii uu ka cajabiyo. mahadsanid.